السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasta joogtaan soo dhawaada oo walaalkii maxamed qoob oo idin leh hal soo dhawaado maanta waxaan isla eegi doonaa ama isla analyze gareyn doonaa waxa weeye Cabdiraxmaan Cabdishakuur baan isla eegi doonaa iyo Khadiija Maxamed Diiriye nin wata gaari uu aabihi leeyahay kuma qaylin karo rag wata baaskiilado ay leeyihiin inta ka bacdi Khadiija Maxamed Diiriye ayaa waxay aaday xabaashi Jaale Maxamed Saadare bay aaday iyadoo u soo ducaynaysay page-keeda soo dhigtay meelaha inay ka soo siraadatay Jaale Maxamed Saadare inta ka bacdi maxaa dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa orday wuxuu sii maray lambar 4 buu sii maray kabtiisii 45 tahayd oo maalintii uu kaga cararay buu sii qashta uu sii qaat xafiiskiisii buu tagay beeshkiisii uu kala fura wuxuu soo dhiga waa sida kaliya buu yiri aad ku raali gelin kartiin mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddaxiliyeedka soo dhamaaday marna ma ka yeeli mayno mana ogolaan doono arrimahaas oo kale waayahay wuxuu kale u sameeyay wuxuu booqday Allah u naxariistay isna madaxweyne Ali Mahdi xalaashiisu isna booqdo inta ka bacdi waxa la yaabay ama aan qaadan waayay horta Cabdiraxmaan Cabdishakuur horta maalin kasta wuxuu haystaa qof buu haystaa Farmaajo uu soo dhaaf hadda wasiiradii iyo xildhibaanadii ba ka baxsan la haddana soo dhaaf dumarkii iyo hooyooyinkii xilka nabadina oo ka hayay ee Soomaaliyeed buu maalin kasta mid wuxuu haystaa gambada hadirto isaga dumarkii ba isku liita isku ildaran wallahi billahi tullah kowde hadii ay ku roon yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur horta Cabdiraxmaan Cabdishakuur arrin khaldan buu sameeyay maalin kastana kow maaha oo laba maaha haddaba waxa aynu isweydiino loo baahan yahay waa arrinta inta ka bacdi horta abaal dad galaa badan dad gudaasa yar horta Maxamed Saadare abaalkiisa horta ma gudi karno horta iyada ay dambayso horta Allah u naxariisto labada madaxweyne Ali Mahdi iyo Jaale Maxamed Saadare Ilaahay u naxariisto madaxweynaha Soomaaliyeed bay ahaayeen Ilaahay godka waasiyo maantana maaha in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay qabyaalad iyo uu la soo aado marxuumintii qormay marxuumintii iyo xabaalihii booqasho la soo booqanayo qormay qabyaaladii gashay horta cid kale kulama socoto waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaliya weey sababtoo ah hawiye kuma raacsana Soomaali kale kuma raacsana waa isaga iyo maangaabnimadiisa weey arintaas ilaahay horta labadooda ha u naxariisto labada marxuun waa u ducaynaynaa Jaale Maxamed Saadare Soomaali oo dhan abaalkiisa gudi kari mayso Soomaali oo dhan hadday isku tagto abaalkiisa gudi kari mayso wuxuu ahaa in marka qofkii soo qaada magaciisaba qofka maqlaya inuu duceeyo ilaahay ku naxariisto laakiin nacas xoola ah oo ku garaadsaday kaliya Maxamed Saadare dawladii waa kan oo lagu sheekeeyo iyo ku haysan jiray xoog iyo iqraab lagu sheekeeyay ba ka dhacsan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay waxaad ku noqotaa riyahaagii iyo malcamadahaagii ku noqo yaadarow riyahaagii malcamadahaagii ku noqo siyaasadina way ka weynta way kaamira weynaatay way kaamira weynaatay Maxamed Saadare wax qabadkiisa hadii xoogaa aanu yara aan la iskareyno aan isla fiirino dib inuu xasuusiyo wuxuu dhisay wadooyin buu dhisay wadadaas guud ahaan cabirkeedu waxa weeye 2950 kilomitir wada buu dhisay Kismaayo ilaa Xamar 500 oo kilomitir buu dhisay Xamar ilaa Baydhabo
250 kilomitr buu dhisay. xamar ilaa Garowe 950 kilomitr buu dhisay. Garowe ilaa Boosaaso 480 kilomitr buu dhisay. 480 buu dhisay. Berbera ilaa Boorami dheedkeeda wuxuu dhisay 266 kilomitr buu dhisay. wuxuu kaloo dhisay mashruuc 60 mashruuc buu dhisay oo biyo xidheena ah. wuxuu nagu daray oo kale jaamacadda carabta uu nagu daray Soomaaliya saa ku daray in ka badan 30 warshadood ayuu dalka ka hirgeliyay. wuxuu dhisay 13 buundo Jaale Maxamed Siyaad Barre dhisay. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Soomaali wadooyin maanta ku soconayso ama ay ku faanayso Maxamed Siyaad Barre qabtay. Cabdi Shakuur gurigiisa gaarigiisa uu maanta leeyahay ku faanayo Maxamed Siyaad Barre ka dambeeyay. barigu Maxamed Siyaad Barre dalka u tirin jireen isagoo caana diiq xamar kuwa soo galiya caanaha ya keena buu ahaa. isaga inta hadda siyaasiyiinta ahoo ma taqaanaa inta la taagan Maxamed Siyaad Barre asaasa la taagan saas horta ahaayeen. waxay ka garanayaan waxay ka ogyihiin ma jirto. ummadda Soomaaliyeed hadda waxaan leeyahay dowladdan yar oo hadda inoo bariiqasa nabad iyo nolol horta mucaaradkaasi say u burburin lahaayeen bay waxay u fuuleen geed dheer iyo geed gaaban. maalin kasta farmaajo haystaan, wasiiradiisa haystaan, dumarkii hadda ay marayaan dumarkii bay hadda usoo dhigteen oo ka baxsan la dee waxaan wax ka badane qofkii dumar maalinta ma la soo aasano xabaalaha la geeyana wuxuu soo wadaa inuu dhaho Cabdi Shakuur inuu dhaho soo wadaa qabiilkee bay ahayd iyo yay ahayd taasaa dambaysa wax kale haray ma jiraan. haddaba Maxamed Siyaad Barre isagoo intaasoo mashruuc hadda in yar baan ka taataabana lama soo koobi karo. Maxamed Siyaad Barre wuxuu qabtay Soomaali u qabtay cid soo koobi karta ma jirto. isagoo saa waddanka usoo waxeeyey Maxamed Siyaad Barre u dhisay iyo dalkaba Soomaaliyeedba baynu maalin kasta wax ka sheeganay. waxay ahayd in taalo loo dhiso taalo in loo dhiso in taalo loo dhiso iska daayay Soomaalidu ka baxsan lahayd isagoo maanta 30 sano ka hor dhintay isagoo dhintay bay Soomaalidu ka baxsan lahayd. war madaxweynihii hore weeye hala daayo la daayo Soomaaliyeey dhanna maaha Cabdi Shakuur iyo xulafadiisa. Cabdi Shakuur saa noogu noqon maysi madaxweyne Soomaaliyeed weligaa ku noqon maysi. maalin kasta ciidamada way ka dhacday dib oo dambaysana maalin kasta taageerahaaga intii ku wadatay maalin kastana way ka nusqaamayaan. waayo maalin kasta waxa la jirka la soo taagan tahay sidaa saa inta ka bacdi dowladeena nabadii nolol bay noo soo xigtay dowladii Maxamed Siyaad Barre. dowladeena danu shacabka Soomaaliyeed nahay aan ilaashano aynu ku mitidno aynu taageerno aynu badeena taageerno aynu madaxweynaha taageerno nabadeena aynu taageerno. Cabdi Shakuur ummadda Soomaaliyeed ka daa qabyaaladda siyaasaddan qabyaaladda ka daa inadeero cid kugu raacsan ma jirto hawiye cid kale kugu raacsana haba yaraatee ma jirto aday kugu gaarta. waxaa kaloo aan leeyahay Khadiija xaal qaadan leen xaal haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed maadaama aad dowladda nabadeena noogu jirtid barajiis baanu kaas jirnay arrinta Cabdi Shakuur ka soo yeedhay maadaama adoo hooyo Soomaaliyeeda hadalka aan geyin uusan kaa qaban oo isagu khalkhalay ya anagoo shacabkiya baa raaligelin ka bixinay hadalka Cabdi Shakuur ka soo yeedhay. Cabdi Shakuurna waxaan leeyahay waa nin Soomaaliya kulli badii buu gata berigana wuu iibsan lahaa haddii uu sii joogi lahaa 6 bilood dambe berigana wuu ku dari lahaa badii iska daayay berigana wuu ku dari lahaa wallah waa huba. waxaan leeyahay Khadiijay xaal qaado ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka uu taageersan yihiin nabadii nolol waan wadanaa. madaxweyne farmaajada waxaan leeyahay madaxweynihii Soomaaliyeed baa tahay hore u soco
mucaaradkana ya ha u joojin shacabka Soomaaliyeed adaa hoggaan oo hoggaan adaa oo ah insha Allah waxaan rajayn doonaa inaad soo noqotid madaxweyne baan rajayn doonaa oo 4 sano dambe aad wadanka xukuntid insha Allah waxaa kaloo Soomaaliyeed aan u rajayn doonaa badda uu gatay Adnaan Cabdishakuur oo maanta muran ka dhalisay oo ilaahay hadeerta maxkamadda ICJ dacwadeedu ay ka socoto maanta ay saddex tahay maalin saddexaad ay ka socoto ilaahay ugu guuleeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala badeena hay noo soo dhiciyo inagu Kenya kama rabno wax ma taqaana ay leeyihiin kama doonano wax aan leenahay inta leena wax dhaafsan dooni mayno ilaahay inteena subhanahu wa ta'ala barigeena badeena ya ilaahay hay noo ilaaliyo Soomaalina waan ogahayo hal meel laga maro dhulkooda laga maro meel kasta ay joogto si kasta isku aw kala dacwoodeen dhulkeeda midnimada laga maro marba waxaan isdhaabaniyo yaa soo celiye ya dagaalka sabirsankiya soo celiya isdhaab mar oo Kenya may dagaal ku soo qaado ama Ethiopia dagaal ku soo qaado Soomaali oo dhan ha israacdo maanta ma ha iskabsadeen ya kana marba bas dhaabaniyo may dhacdo may he dhacdo way waxaan ogahay umada Soomaaliyeed dhulka soo ku baareeyo in aysan meel kala haray wad ogtiin se u tumnaayeen maamooyinkii hooyooyinkii islaamuhu iyo odayaasha u tumnaayeen maxkamadda ICJ horteeda ay calanka Soomaaliya ay saa u taagnaayeen ay muujinayeen dareenkooda iyo inay badda leeyihiin oo ku mahadsan yihiin qurba joogto umada Soomaaliyeed 100% aad ugu mahad celinaya si u garab taagan yihiin dacwadda badda iyo ICJ maxkamadda insha Allah rajayn doono in aynu ku guuleysano kaga soo qaadno Soomaalina guusha u dhaatay wina jiraysa mucaaradkana dadka kala dilay umada Soomaaliya kala dilay oo qabyaalada iyo qornimada kula shaqaysanayana oo Adnaan Cabdishakuur uu kow ka yahayna Allah inaga qabto alina hadduu hanuun lahay la dabcayna ilaahay soo hadiyo 30 sano baa ku jirtay umada Soomaaliyeed qax iyo burbur iyo dhib ku jirtay in maanta mucaaradku ay wixii dabada inoo geliyaan ma fiicna mana aha aad u salaamaya dhamaan shacabkayga umada Soomaaliyeed meel kasta joogan waa walaalkiin Maxamed Qoob falaqeynta arrimaha siyaasadda soo dhawaada leena markaas soo dhawaada dhamaan hal la gaarsiiyo umada Soomaaliyeed share-ta iyo like-ta ha lagu qabto page-ka hala follow gareeyo aad iyo aad baan salaamaya dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta joogan assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh